وعن وناكسيد الهانتي مداوضة يا الميل كستوان نقد داونا يسان واحد كسر دواتان مركلة يولي ببرنامجك dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan daawadayaal barnaamijka dhacdooyinka ayaa waxaanu ku soo qaadanaa dhacdooyinka ugu la yaabka badan ee adduunkan guudkeeda ka dhacay haddaba daawadayaal habeenkan caawa barnaamijka dhacdooyinka aan ku soo qaadan doono ayaa waxa ka mid noqon doona nin isagu doonaya inuu buugan junior war recordka ama dhacdooyinka la yaab kale inuu kaga qayb qaato inuu afkiisa ku guro dabaqalo uu qadarkiisu gaarayo 21 mid ma ku guuleysan doona daawadayaal dhacdadaasi dabaqaloocaasi se wax ma yeeli kara waxa kaloon daawadayaal ku soo qaadan doona nin isaguna doonaya inuu intuu beed liqo oo uu afkiisa galiyo ilaa caloosha u guda daadajiyo haddana dib uga soo celin doona xubnahaas iyo waliba xubno kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal aan idinku hayaa barnaamijka ee ku soo dhawaada haddii aan daawadayaal inoo soo qabto xubinta ugu horreysay iyo barnaamijkeena dhacdooyinka iyo habeenkan caawa ayaa waxaanu ku soo qaadan doonaa nin isagu doonaya inuu buugan dhacdooyinka adduunka kaga qayb galo inuu afkiisa ku guro 21 dabaqalooc haddaba daawadayaal dabaqaloocaasi wax ma yeeli doona waxa uu doonayaa daawadayaal inuu 21 kaasi dabaqalooc qadar dhan inuu afkiisa ku hayo 10 second amaba 10 ilbiriqsi haddaba daawadayaal ninkaasi waxaynu eegi doonaa inuu dabaqaloocaasi afkiisa intaasi ku hayo iyo waliba inuu ku guuleysto buugan dhacdooyinka la yaab kale ee daawasho wanaagsan 21 in there right now and they're at war with each other daawadayaal dhacdadana waxaynu ku soo qaadanaa ninkan aad arkaysaan ayaa waxa uu doonayaa inuu buuga dhacdooyinka adduunka kaga qayb galo 21 dabaqalooc inuu afkiisa ku hayo muddo 10 ilbiriqsi ah ama 10 second bal haddaba daawadayaal aynu eegno inta uu ku hayo muddadaasi dabaqaloocan 21 in there right now and they're at war with each other daawadayaal sida aad arkaysaan waxa uu ninkani afka ku gurayaa dabaqaloocaasi oo aan isagu waxba u geysanayn haddaba daawadayaal bal aynu eegno sida ugu guuleysto iyo waliba inta ilbiriqsi ee uu afka ku hayo dabaqaloocani if you get that one in you got 21 now it's just 10, a time thing 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1. Okej. Så det är nu ett nytt rekord. Han har haft dem mer än 10 sekunder i munnen, vilket är det som reglerna stipulerar. 21 stycken skorpioner och titta nu när de kommer ut och krälar runt hela grejset. Ner i den runda skålen där. This is disgusting, Dean. To me, I mean. Really? Yeah. I don't think so. You don't think so? There's one on the floor there. We shall not lose them running around here. muddo 10 daqiiqo gudahood ayaa daawadayaal dabaqaloocani afka ku hayay waxaanu dhammaystiray waqtigii loogu talagalay inuu afka ku hayo oo ahaa 10 ilbiriqsi ama 10 second hadda waxa uu iska soo gurayaa dabaqaloocaasi muddada uu afka ku hayay dabaqaloocan isagu wax dhib ah u geysan ninkan ayaa daawadayaal sidaas waxa uu ku galay buuga dhacdooyinka adduunka kadib markii uu muddo 10 ilbiriqsi ah uu afka ku hayay dabaqalooc isagoo aan dabaqaloocaasi aan waxba u geysan dabaqaloocan uu afka ku hayay ayaa ahaa 21 dabaqalooc haddaba daawadayaal waxa uu sidaas ku galay buuga dhacdooyinka adduunka no problem and you Guinness World Record oh terrific give him a hand You get diplomas and stuff to certify the new record. You want to say it in English or should we say it in Swedish? Don't try this at home.
Do not try this at home, please. Anybody watching this is just something that I'm crazy enough to do. haddii aynu daawadayaal xubinta ugu horeysa iyo weliba barnaamijkeena dhacdooyinka intaasi kaga soo gudubno sidaynu arkayna ninkaasi isagu 21kaasi dabaqalooc uu afkiisa ku hayay muddo 10 sakana amaba 10 ilbiriqsi ah sidaasna daawadayaal wuxuu ku galay buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan dhacdadan markan ku soo qaadan doono ayaa waxay tahay daawadayaal nin lagu magacaabo Siina ayaa waxa uu doonayaa inuu buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan uu kaga qayb galo in uu beedliqo dabadeedna uu soo tufo daawadayaal aad ayaa u adag tahay in wax aad liqday aad soo tufto laakiinse bal ninkan ayaa isagu doonaya 1 minute gudaheed in tiro beedad ah intuu liqo dabadeedna uu afkiisa ka soo celiyo bal waxaynu eegi doonaa inay dhacdadaasi u suurto gasho oo uu ku guuleysto iyo waliba in kale ee daawasho wanaagsan Primo uomo. One. Two. Three. daawadayaal sida aad nala wada arkaysaan Master Siina waxa uu doonayaa in uu kaga qayb galo buuggan dhacdooyinka intaasi oo beed ee hortaala in bal hadda inta mid ee uu muddo 1 minute ah ku liqi karo dabadeedna uu calooshiisa ka soo celin karo waa sida uu kaga qayb galayo buugga dhacdooyinka Master Siina waxa laga doonayaa in muddadaasi 1 minute ah la eego inta xabo ee beed ah ee uu calooshiisa inta uu liqo uu haddana dib uga soo celiyo sida aad wada arkaysaan daawadayaal ninkani Siina oo isagu si la yaab leh beedka u liqaya kadibna uga soo celinaya calooshiisa ayaa waxa uu ku guda jiraa hawshaasi in uu ku dhameystiro 1 minute muddo ah. Steve, are you ready? Yeah. Yeah. I am so ready. Sì, sono pronto. Okay. 3, 2, 1, go. 1 minuto, signori. Primo uomo. One. Two. Three. 30 seconds. Okay. 6. 7. 8. 9. 52 seconds. 10. Sento rumori raccapriccianti. 2, 1, stop. Stop! Di 11 uova ed è un Guinness World Ma non Record. ci posso credere, ma non fatelo questo, non fatelo perché sono... Master Siina waxa uu daawadayaal sidaasi kaga qayb galay buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan ee World Guinness Recordka isaga oo muddo 1 minute ah calooshiisa intuu liqay haddana dib uga soo celiyay beed gaaraya 11 xabo. Arriva la medaglia. Allora Steve, apri la bocca. No, te l'ho detto. On the head, yeah? Te la devi mangiata, la devi. Thank you very much. Thank you. Grazie. Thank you. daawadayaal sidaad wada arkaysaan ninka lagu magacaabo Siina waxa uu Juniors World Recordka ku galay inuu muddo 1 minute ah uu afkiisa ku hayay beedadkaasi aynu arkaynay amaba intuu liqo uu soo tufayay sidaasna daawadayaal waxa uu ku galay buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan dhacdadan markan daawadayaal idii soo qabtay ee aan idii hayaa waxay tahay 2 nin oo iyagu ku tartamaya inay 2 xarig inta qabsadaan ay ka soo laadlaadaan amaba sida loo yaqaan ciyaartan joomestikada oo kale waxaana 2 nin loo eegi doonaa kooda waqtiga ugu badan haysta halkaasi dhanna iskuma dhaqaajin doonaan daawadayaal intay xarkahaasi ay haystaan bal waxaynu eegi doonaa 2 nin iyo waliba ka ku guuleysta dhacdadaasi ee daawasho wanaagsan dhacdadana waxaynu ku eegaynaa 2 nin ee aad arkaysaan ayaa waxay ku tartamayaan
in ay xadhkaha halkan ka soo laadlaado daawadayaal sida aad arkaysaan inay qadar haystaan. haddaba daawadayaal labada nin ayaa waxaa loo eegayaa midka wakhtiga ugu badan xadhkahani haysta isagoo oo aan dhinacna isku dhaqaajin. dhacdadani aad ayaa u adag tahay daawadayaal, waayo qof walba waxaa laga rabaa in aanu dhanna isku ceerin oo xadhkahaasi haysto iyada oo aan waxba u hoos oolin. haddaba daawadayaal labada nin ayaa waxaynu eegi doonaa midka ku guulaysta inuu wakhtiga ugu badan uu xadhkahani qacmihiisa uu ku haysto isaga oo aan waxba u oolin oo uu ka laadlaado. ee daawasho wanaagsan. Strongest as they take up the Roman rings challenge. Roman rings are a gymnastic piece of apparatus, 2 rings suspended on ropes, and each gymnast has to grip the rings and hang there with their arms in a horizontal position for as long as they can. Look at the strain and concentration in his face. This is incredibly difficult. The arms are dropping. sida aynu arkayno daawadayaal ninkii ugu horreeyey ayaa isagu markii uu muddo yar haystay halkaasi ka soo dhacay. waxaynu eegi doonaa saaxiibkiisan kale inta daqiiqo ee uu haysto amaba labadoodan ka ku guulaysta. Body weight, but you are trying to resist the force of gravity all at the same time. And we're off. A very fluid technique. Now this is the face you might recognise, one of Sweden's top 20 gymnasts, Niklas Eklund. Are you up to it, lad? Look at the concentration in his face. This man is focused. He's just starting to dip. Time will stop. 15 seconds was the time he had to beat. How's he done? sida aynu arkayna daawadayaal ninkan oo lagu magacaabo Nicholas ayaa isagu ku guulaystay in uu muddo dhan 16 sakan uu xadhkahani isagoo oo aan dhannaba isku dhaqaajinaynin waxbana aanay u hoos oolin uu haysto. sidaasna waxa uu ku galay buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan ee Guinness World Record-ka. hadaynu intaasi kaga nimaadno labadaas nin ee iyagu ku tartamayay inay xadhkahaasi ka laadlaadaan sida aynu arkayno uu ninkaasi ku guulaystay isagu in uu muddo aad u badan uu xadhkahaasi ka soo laadlaado oo saaxiibkiisa kale uu kaga guulaysto. sidaasna waxa uu ku galay buugga dhacdooyinka la yaab kale. dhacdada aan markan soo qaadan doono ee aan idinku hayo barnaamijka ayaa waxay tahay laba nin oo u dhashay waddankaasi Faransiiska weytarana ka ah hoteelo ku yaala waddankaasi Faransiiska ayaa waxay doonayaan inay ku tartamaan in koobab aad u tiro badan ay gacan qura ku qaadaan isla mar ahaantaasina muddo 10 mitir ah ay la socdaan oo ay miis kala geeyaan iyagoo oo koobabkaasi ku sida gacan qura. haddaba daawadayaal bal waxaynu eegi doonaa koobabka ugu badan gacan qura intuu ku qaado 10kaasi mitir amaba 10kaasi tallaabo intuu socdo ku guulaysta dhacdooyinka amaba Guinness World Record-ka ee ila daawada. Welcome to France. Bonjour France. And here's Steve. Steve the glass carrier. Steve the waiter, the glass carrier. Now, in case you're wondering what he's doing, I'll tell you again. He's carrying glasses. dhacdadan ayaa daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa laba dhin oo u dhashay waddankaasi Faransiiska weytarana ka ah hoteelo ku yaala waddankaasi ayaa waxay doonayaan inay ku tartamaan oo buugan dhacdooyinka ay kaga qayb qaataan inay gacan qura ku qaadaan qadar koobab ah isla mar ahaantaana ay la socdaan 10 tallaabo amaba 10 mitir iyagoo geynaya markaasi miis kale. haddaba daawadayaal waxaynu eegi doonaa labada nin iyo waliba ka koobabka ugu badan qaada iyo waliba ka ku guulaysta. haddaba daawadayaal bal aynu eegno ninka ugu horeeya ee isagu qaadi doona koobabkaasi iyo waliba inta koob ee uu qaado. Steve. Steve the glass carrier. Steve the waiter, the glass carrier. Now, in case you're wondering what he's doing, I'll tell you again. He's carrying glasses. But as usual, daawadayaal waxaynu arkaynaa hadda in ninkii ugu horreeyay uu qaaday koobabkaasi. hadda waxa uu wadaa koobabkii waana uu la socdaa waxaana uu hadda gaarsiiyey miiskii kale. bal aynu eegno inta koob ee uu gacantiisa put them down without dropping them, Steve. Come on, concentrate, mate. And without breaking them, of course. Let's see how he gets on. 6. Obviously, the 2 he dropped will not count. 8, 9,
10, not bad. already up to 13. 15. And there you have it. 15 glasses. sida aynu arkayna daawadayaal ninkani waxa uu gacantiisa ka soo dejiyay 15 koob haddaba daawadayaal ninka kale ee la tartamaya ayaa aynu eegi doonaa inta koob ee uu qaado iyo waliba inuu 10kaasi tallaabo ama 10kaasi mitir uu la soo socdo inay wax ka daataan iyo in kale aynu eegno. There's a lady wearing safety goggles, not quite sure what she's expecting to happen. Now remember, what he's got to do is see how many glasses he can carry in one hand from one table to another 10 meters away. Now, Philippe is a sommelier at the Hotel Prince de Gaulle in Paris, France, where he has learned from some of the finest glass carriers in the history of French hospitality, what? And by the look of things, he has a great plan here. Yes, that's a very well thought out technique. It's the wide-palmed pyramid stack, favoured by many French glass carriers. Look at this, slowly but surely. Well, he's looking quite confident. I'm not sure whether rhythmic clapping from the audience is going to help him concentrate, but never mind. There you go, slowly and surely. He now has to transport them across the studio floor and then lay them out in one piece. And hopefully not millions if he drops them. Okay, he's made the walk. Now comes the tricky part. He's got to make sure not one of these drops or smashes. Otherwise, that's it. Kaboom! End of the record attempt. Number 4. Look at him go. 6 glasses successfully placed onto the table. I reckon he's going to be well up into the 20s by the time he's finished. And there's our adjudicator standing well back just in case any of the glasses should smash. So that's why the lady was wearing safety goggles. That'll teach me for getting all sarcastic. 14 glasses, 15 glasses. Down to the final hand, no stack left. He should be able to put these down quite quickly. Up to 20, I was right. 23, 24 and 25 glasses. sida aynu daawadayaal arkayno ninkan oo la yiraahdo Philippe Gatia ayaa isagu waxa uu qaaday koobab dhan 25 koob halka saaxiibkiisii ka horeeyayna uu qaaday 15 koob sidaas ayuu Philippe Gatia ku galay buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan. dhacdada ugu dambaysa iyo barnaamijkeena ayaa daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa nin lagu magacaabo Andras ayaa waxa uu doonayaa inuu buugga dhacdooyinka ama dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan inuu kaga qayb qaato oo isku dayo inuu farqura ku wareejiyo alqaban. daawadayaal alqabanka lagu sameeyo saambuusaha aad ayay u adagtahay in farqura lagu wareejiyo laakiin ninkan ayaa isagu waxa uu doonayaa inuu isku daygaasi uu sameeyo oo uu ku soo bandhigo buugga dhacdooyinka la yaab kale bal waxa la eegi doonaa inta uu alqabankaasi lagu sameeyo saambuusaha inta uu fartiisa ku wareejiyo waxaynaynu eegi doonaa dhacdadaasi inuu ku guuleysto iyo in kale ee daawasho wanaagsan. dhacdadan waxaynu ku eegi doonaa ninkan oo u dhashay wadankaasi Sweden laguna magacaabo Andras ayaa waxa uu doonayaa inuu buugga Juniors World Record ama dhacdooyinka la yaab kale uu kaga qayb galo inuu fartiisa ku wareejiyo alqaban ama baalkan saambuusaha lagu sameeyo. haddii uu fartiisaasi ku wareejiyana waxa uu sidaas kaga qayb gali doonaa buugga dhacdooyinka ugu la yaabka badan waxaana loo eegi doonaa inta minid ee uu fartiisa ku wareejiyo. bal haddaba daawadayaal aynu eegno wiilkan lagu magacaabo Andras ee u dhashay wadankaasi Sweden inuu dhacdadan ku guuleystay in kale. One is off. Now what he's got to do is spin that on his finger for as long as possible. Just gaining up a little bit of speed. He's bored already. Now unlike pizza boxes, a frying pan doesn't have an even weight distribution. There's a great big handle on the side for starters, which makes it virtually impossible for you to balance it on your finger. Virtually impossible, but not totally impossible, as Anders is proving right here. Now, if you think you're too tough for spinning frying pans on your fingers, then just listen to this, because there's also a record called the tightest frying pan roll. An ordinary 30cm aluminium frying pan was rolled up into a pancake-like shape of only 23.5 centimeters
by Craig Pumphrey from the United States of America just by using his bare hands. Now that is some incredible strength. But right now, let's go back to Anders Björklund from Sweden and let's just examine his technique. Perfectly. sidaynu arkayna daawadayaal weli waxa uu ku guda jiraa in uu fartiisa ku wareejiyo alqabankani isagoo aan ka dhacaynin marnaba isagoo ku wareejinaya farqudan daawadayaal aad ayaa u adag tahay in farqudan lagu wareejiyo alqabankana aynu arkayno bal aynu eegno inuu ku guuleysto iyo in kale. Still upper body. Slight rotation from the elbow. Wrist locked solid. But the finger providing a perfect spinning platform. Finger just touching the ends of each other, giving himself the extra stability. Left hand thumb wedged securely in the pocket. And a nice tight t-shirt to boot. I think he thought that was funny. But just look at this, he's making it look like a walk in the park. Casually spinning a frying pan on his finger. That's the record broken. Fantastic. One wrong move though and he'll have egg on his face. Oh, bit of a squeak going on. I think that could do with a bit of oiling. He's broken into a smile. He's now staring. Oh my word, look at that. He's on a trick. That was fantastic. Roll on pancake day. Oh, and it's all gone wonky and he's dropped it. Who cares though? He has just broken the Guinness World Record. Congratulations, Anders Björklund from Sweden. You have managed to spin a frying pan on your finger. Anders daawadayaal sida aynu arkayno waxa uu ku guuleystay in uu fartiisa ku wareejiyo alqabankani muddo dhan 14 minute iyadoon mar qurana ka dhicin isla mar ahaantaana dhan qura uga leexanin sidaasna waxa uu ku galay buuga dhacdooyinka ugu la yaabka badan. daawadayaal waxaan soo gaadhnay guntii gabagabadii iyo waliba gunaanadkii barnaamijka dhacdooyinka la yaabka leh. barnaamijkan barnaamij lamida intaan iskugu iman doono waa kamradii Foosi Axmed Caynab waa soo diyaarintii iyo soo jeedintii iyo habayntii anigoo Jamaal Axmed Naasira aniga iyo waliba bahweyntii kale igala qayb qaadatayba waxaan idinku dhaafaynaa nabadee.